أيوم قولي يطوق جبل دير خيكنا ونقدر ما هذا. قال ما عارف ماله تكيد يقول كلام ولا وحنا واقوى كرون xaaladda abaarta dad iyo dunyaba taabatay ee muddada dheer soo jiitamaysay roob la'aanta biyo yaraanta iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga ah ee ka jira gobollada Awdal iyo Salal waa kuwa maanta soo jiitay odayaasha dhaqanka culimada iyo waxgarad kale kuwaasi oo shaaciyay shir degdeg ah oo lagaga arrinsanayo xaaladda abaarta iyo sidii deegaanadani gurmad loo gaarsiin lahaa Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar oo fariin u diray ergooyinka muhiimka ah ee shirkaasi ka soo qayb galaya ayaa waxa uu yiri dhammaanba siyaasiyiinta iyo golayaasha qaranka cidda kaga jirta gobolladan Awdal iyo Salal inay bisha 14 maalinta Khamiista ay si degdeg ah u soo galaan magaalada Boorama taas oo la doonayo in qayladaan fara badan iyo talooyin fara badan la iska weydiiyo abaartaasi adkaatay ka taagan gobollada sidaas oo kale ayaa sheekul baladka magaalada Boorama Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar waxa uu tilmaamay kaalinta ay xukuumaddu ku leedahay shirkani ballaadhana dawladda waxaan la socodsiinaynaa inay iyadu nafteedu dad u soo dirato shirkaasi ballaaran ee la qaban doono bisha 14keeda waxa loo qabanayaana ay tahay abaaraha gobollada Awdal iyo Salal ku habsaday in dawladdu ka soo qayb gasho deegaanadan ayaa waxa laga soo sheegayaa xaalado kale oo dhinaca caafimaadka ah waana taamida ka hadlisay Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac wasaaradda caafimaadka siba gobolka waxaan iyagana faraynaa dadka gargaar bariyeeriya jirada ee ku dhacday shubaka ee jadacadii ku dhacday hadda la noo soo sheegayo inay bari hadii la yiraahdo ay kormeer cid u diraan si kastaba haatee shirkan ayaan la sheegin muddada uu socon doono balse waxa muhiim ah oo hoosta laga xariiqay in hay'adaha caalamiga ah kuwa wadaniga ah shirkadaha ganacsiga iyo cid walba oo danaynaysa inay gargaar ka geysato xaaladaasi abaarta uu furan yahay isla markaana ay ka soo qayb qaadan karaan Cabdulla Ali Yusuf Hon Cable TV magaalada Boorama